sanadkan cusub ee 2020 magaalada Boorama waxay nasiib u yeelatay in laga furo xafiis ahmiyad gaar ah u leh kobaca dhaqaalaha waxaana xafiiskan oo ah xafiiska rugta ganacsiga beeraha iyo warshadaha ee gobolka Awdal xadhiga ka jaray wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo uu weheliyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland waxaana wixii intaasi ka dambeeyay qabsoontay munaasabad aad u heer sareysa oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer degmo heer gobol iyo heer qaran isugu jira oo ay weheliyaan daneeyayaasha kale ee ganacsiga waxaana madashaasi ka hadlay mas'uuliyiinta hoggaanka u hayn doonta rugtan cusub waxaana ay ka warameen rugta ganacsigu ma aha meel macaash joogo waa non-profit institution weyn waxay isugu yimiday dhammaan ganacsatada gobolka way shireen way iscalo xaadeen waxa markaa ay soo gudbiyeen in ay doortaan guddiga waxay doorteen gudoomiye iyo laba gudoomiye ku xigeen ganacsiga waxaan ujeedooyinka aan u aasaasnay waxaa ka mid ah kow inay isku xidho oo u dhaxeeya ganacsatada iyo xukuumadda halkaasi ay noqoto gateway albaab u furma maxayday ay wada shaqayn fiican ku yeeshaan mar labaadka in aanu sare u qaadno ganacsiga ka yar iyo ka weynba aanu isku xidhno waxa ugu sahlan ama ugu dhib yar inoo qaban doontaa waxay tahay isku xidhka dadka baayac mushtariga ee gobolkan ayaa meel ay iskugu yimaadaan oo ay cabashadooda iyo horumarkooda iyo wada qabsigooda kaga hadlaan bay horta ay wax weyn ka taraysaa marka taa horta inaan ku dadaalnaa inaan laysanada qaadanaa inaan isku xidhnaa xafiiskan doonayna inaan furo waa inaan ka shaqaynaa horumarintiisa waayo si aan hadhow u samaysan karno xafiisyo waaweyn oo ay ka muuqato tijaarta gobolka Awdal muraayad noqon karta wixii intaasi ka dambeeyay ayaa mas'uuliyiin oday dhaqameedo haween iyo ganacsato halkaasi ka hadlay ayaguna rugtan soo dhaweeyeen marka hore aan ku hadlaya afka golaha dhaqanka waa soo dhaweynaynaa rugta ganacsiga gobolka Awdal aad iyo aad baa loogu baahnaa waanu soo dhaweynaynaa waa barbar taaganahay waxyaalaha ay qabanayso kale waxa ka mid ah rugta ganacsigu in ay isku xidho ganacsatada dhexdooda danahooga ay ka shaqayso kobcinta ganacsiga ay ka shaqayso waan soo dhaweynaynaa chamber of commerce waan soo dhaweynaynaa marka waxa gobolka waa loo baahan yahay ganacsadeeduna way ballaaran tahay magaaladeenu way fiday ma sha Allah alayk waa idin mahadnaqaynaa waa idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad noo mahadsantiin hawshana waa hawl runtii loo baahnaa wasaaradda ganacsiga uga mahadnaqaynaa inay gacan buuxda ku siiyeen hawshan annaguna dhinacayaga waanu garab taaganahay wuxuu dan u yahay rugtan ganacsigu dawladda dambe u tahay dadkana dambe u tahay ganacsatadana dambe u tahay xafiiskana aad baan soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa gobol ahaan iyo degmo ahaanba gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa hoosta ka xariiqay aad iyo aad baan u hambaleynayaa guddida waa wada shaqayn doonaa shirar gaala baanu geli doonaa wixii aqoon iyo documents aanu haynana waanu ku wareejin doonaa insha Allah waxa kale oo muhiim ah laysamada ganacsiga hadduu yahay import hadduu yahay export and import iyo hadduu yahay warshadeynba xafiiska gobolka Awdal baa bixinaya waxa aad iyo aad farxad noogu ah in xafiiskii rugta ganacsiga warshadaha iyo beeruhu oo ka furmay gobolka Awdal aad iyo aad baan moogtahay ugu ducaynaynaa mid yar baan xasuusinayaa hadda waxaan soo saaray licensing actigi waa gudbiyey waa la approve gareeyey koobina waad soo qaadanaysaan kaasa wax ku soconaya horaa loo sheegay muhiimadda ay leedahay rugta ganacsiga waa arrin aad u muhiim ahayd gobolkan aad ugu muhiim ahayd markaa dhaqaaluhu oo badanka ku xidhan yahay waxa la kala iibsaday iyo waxa la iibiyo ganacsi haddaad maqashana dee ninka dukaanka hayo hulmahayne waa isagu waa iibiye waa laga iibsadaa ganacsi waa iswadaariska Abdul Ali Yusuf Home Cable TV Boorama adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida